runtii inkastoon isku hambalyeynayno haddana kowda luuliyo inaan xusno waajib bay nagu tahay haddana laakiin waa maalin farxaddeedu ay naaqis tahay saad og tihiin 35 sano u dambeeyey wuxuu dadka Soomaaliyeed ay la daalaa-dhacayeen khilaafaad siyaasadeed oo ka soo gaaray burburkii dowladdii dhexe ee 1990 taasoo runtii laga soo maray duruufo kala duwan oo adag dalkii Soomaaliya la oran jirayna hadda gelisay xaalad hubanti la'aan maraaxil kala duwan buu dalka soo maray midnimadiisii baa dhaawaca hay-adihii dowladda Soomaaliyeed baan dhammaystirmin dowladnimadii dhiigga iyo dheecaanka iyo dhaqaalaha badan u soo galay oo gumaystaha looga xoreeyey dalka Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed ay muddo dheer naawilayeen ayaa waxaa galay nuqsaan arrintaas waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ku baraarugaan dadka reer Puntland waa dad ku suntanaa xorriyaddii halgankii dheeraa ee la soo galay aasaaskii dowladda Soomaaliyeed dhismihii calanka iyo calansaarkii Soomaaliya waa taariikh ku suntan taariikhda Soomaaliya oo dadka Soomaaliyeed ay wada qirayaan dadka reer Puntland burburkaa kadib waxay waqti badan geliyeen sidii mar labaad loo heli lahaa dowlad Soomaaliyeed oo sal adag waxaad ogtihiin dowladda federaalka ah ee lagu soo yagleelay Imbigaati 2004 oo ah midda maanta oo isku dhiibkiisu uu shaqaynaysay kaalinta iyo doorka ay ku lahaayeen reer Puntland iyo meesha ay maanta soo gaartay Puntland mar walba waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliyeed mar walba waxay u taagan tahay qarannimo Soomaaliyeed mar walba waxay naawilaysaa shacab Soomaaliyeed oo degan oo baraarsan oo horumarsan waxaa nasiib darro ah inaan weli dowladnimada Soomaaliyeed ay la dhutinayso aragti gaabnaan siyaasadeed iyo damac ashkhaaseed iyo kooxeed arrintaas runtii waxay u baahan tahay in si dhug leh loo ogaado waxyaabaha runtii nasiib darrada ah waxa weeye ka soo doogiddii marxaladdaas oo dadka Soomaaliyeed muddo badan ay u fadhiyeen inay maanta halis ku jirto waxaa la laalay oo lagu tuntay dastuurkii heshiiska lagu ahaa waxaa dhaawac loo geystay nidaamkii federaaliga ahaa waxaa sidii la rabo laga yeelay hay-adihii dowladda waxaa takrifal lagu sameeyey ciidankii dowladda iyo ku dhaqankiisa waxaad arkaysaan ciidamadii qaranka loo diyaariyey ee dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba uu waqtiga badan geliyey inuu maanta u shaqeeyo in uu dadka Soomaaliyeed dib u burburiyo waxaa taariikh la ilaaweyn ah wixii ka dhacay 3 iyo 4 bishii shanaad magaalada Muqdisho meel ay ku shirsanaayeen beer Soomaaliyeed oo 70 qof ka badan oo ay joogeen ismo deegaankaas ah runtii in gantaalo iyo drone lagu weeraray oo naftooda halis la geliyay waxyaabaha yaabka ah oo ku soo kordhay Soomaaliya waxaa ka mid ah in madaxweynaha waqtigiisii dhamaaday guriga markuu weerarayay waxaa ku jiray ugaaskii murursade waxaa ku jiray ugaaskii Mudulood waxaa ku jiray imaamkii Muduleed oo labada u dambaysa ah raaskiisa hoose wuxuu ku hogaamiyey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in halkaa lagu baabi'iyo taariikh cusub oo bilaabatay weeye dadka reer Puntland waxay u baahan yihiin inay ku baraarugaan waxaa maalmahan aad loo hadal hayaa Puntland baa waxaa laga qorayaa ciidamo federaal ciidamada federaalka ah oo loo la'yahay meel xamar 10 kiiloomitir u jirta oo la yiraahdo Basra
iyo madaxweynihii hore cali mahdi beeruu leeyahay oo shabaab haystaan oo jowhar iyo xamar aan la isku dhex mari karin oo afgooya aan la aadi karin ninka puntland oo nabad ah oo cadowgii ka adkaatay oo dalkeeda nabad ka dhigtay dhahaya ciidamaan ka qoraya waa wax iska cad waxaa dhibaya horumarka quruxda bilicda puntland dadka reer puntland waxaan u ballan qaadaynaa una sheegaynaa iyadoo saraakiishii ciidanku hareerahayga taagaan yihiin amnigoyna waa ku filannahay amnigiinna waa ku filannahay cadow inay hawaysan karaayana ma jiro haddii ilaahay idan ka dhigo waxaan uga digaynaa dadka reer puntlandna ee danaha yaryar mararka qaarkood ku indha sarcaadaya haddaa istidhaahdaan waxba mararka qaarkood waxaa maqlaa kuwa dhahay annagu waxba yeeli mayna lacag baa iska guranayna lacag suna haddaa guratid dadkaagay ka go'an tahay ogaada arrintaas arrin in lagu kasoomo ma aha arrin dib loo fiiriyo wey waxaynu u baahannahay midnimadeenna inaan adkayno waxaynu u baahannahay dariiqii awowyaasheen inaan ku taagnaanno midnimada soomaaliyeed aan dhiig iyo dheecaan u shubno soomaali midnimadeeda aan ka shaqayno muqdisho waa caasimaddii soomaaliya marna ma oggolaanayno kelitaligsnimo dambe inuu ku soo noqdo dadka reer muqdisho waxaan u ballan qaadaynaa garab iyo gaashaan inaan u nahay in dalkan uu noqdo dal dimuqraadiya dal sharcigu ka shaqeeyo dad dastuurka ixtiraama dad nidaamka federaaliga ah ku dhaqma puntland marna ka tanaasuli mayso nidaamka federaaliga ah marna yeeli mayso dad siyaasadaysan inay ciidan siyaasad u adeegsadaan waxaan insha allah ballan qaadaynaa oo cod dheer ku odhanaynaa in ciidamada puntland ay heegan u yihiin difaaca amniga waa og tihiin wixii calmiskaadii ciidamadu ka dhigeen waad garan karaysaan shuhadadii iyo saraakiishii iyo dadkii qiimaha lahaa ee nooga dhintay dhiiggaas waxaan ku raadinaynaa xorriyad waxaynu ku raadinaynay inay gabdhaheenna iyo wiilasheenna iyo ay farxaan waxaan ku raadinaynay inay ku damaashaadaan quruxda puntland marna ma aqbalayno mid waxyeeleeya bilicda puntland bilicda garoowe bilicda gaalkacyo bilicda baran bilicda boosaaso bilicda carmo iyo dhammaan geyiga puntland cid aan ka aqbalayno inay waxyeelayso ma jirayso waxaan ka xumahay in xamse maalin dhoweyd hadallo uu ku hadlay waxaan aad u jeclaa odaygii hadalka u soo dhiibay inuu sidaas yidhaahdo hadalkaas ninka u soo dhiibay waan garanaynaa reer puntland cuqdad ma qabto waxay rabtana ma sheegi kari waayeen waxaan qabno way cad yihiin dowladnimada dantaan ka leennaha way caddahay aragtideenna siyaasadeed way caddahay cidda cuqdadda iyo soomaali nacaybka ku jirto dadku wuu yaqaannaa ninka dadkiisii dilaayey oo madaxdiisii dilaayey oo isimadiisii ku hoggaaminaya daroonka ninkaasaan filayaa inuu cuqdadaysan yahay soomaalina u cuqdadaysan yahay reer puntland cuqdad laguma yaqaanno waa dadkii xorriyadda iyo halganka waa dadkii soomaalinimada ku sifoobay wayna ku sii sifoobi doonaan haddii ilaahayno arrintaas waxaan rabnaa inay dhegta u dheeraariciyaan jiilka soo garaya midnimada iyo wadajirka soomaali iyo ka shaqaynteeda waa arrin aasaasi u ah jiritaanka iyo dhismaha puntland iyo kan soomaaliyeed waxaan rabaa arrintaas inaad mar walba dhegta u haysaan maanta waa maalin farxadeed laakiin farxaddii waxaa naga qasay nimanka raba inay soomaali baabi'iyaan oo haddana inay gidaarada been ka sheegaan dadka raba waxaan rabaa dadka xasan sheikh madaxweynihii hore iyo wiilkiisa uu hadba hadalka u soo dhiibaayo iyo dadka daaha gadaashiisa ku jira intaba inay bannaanka soo dhigaan waxa weeye dalkan sharci buu ku socon doonaa ilaahay idankiisa dowladnimada soomaaliyana waa loo siman yahay mid xoog lagu haysan karana maaha hortaajire waa waxaan leennahay arrintaas ha ku kadsoomin taladaas dhexda soo dhig dalka soomaaliyeed
inta u baxaysa ha burburin waxaan rabaa inaan uga digo dadka reer Puntland deegaan kasta ay joogaan oo ku fakaraya inay Puntland wax yeelayaan cidna wax ma yeelaynaysan idinka wax yeelaya dadkiina wax u dhimanina Puntland waa ogtiin waa dad dimuqraadiya dad la sujuubo ma aha xukunka xoog lagu ma yimaado waynu garanaynaa waa meel furan ninkii xukun raba ama siyaasad raba yuusan shilimaan ninka soo qaadin oo dhiin buulkaygan gubaya dalkan bannaanka ha soo yimaado ra'yigiisa ha dhiibto waxaan rabaa dadka reer Puntland gudo iyo dibadba walwalka maalmahan iyo hadallada xurxun ee baraha bulshada la marinayo waa kuwo la qorsheeyo la rabo in lagu kiciyo damiirkiina waxaas waa been Puntland nabadgelyadeedu way sugan tahay ciidamadu waa ku filan yihiin cid laga yeelayo inay dhaqdhaqaaq ku samayso inay amnigeeda ku xadgudbaan ma jirto taasna waxaa ku filan shacabkeeda iyo dawladdeeda u igmadeen waxaan rabaa inaan inii sheego dawladdiina ku kalsoonaada waxay ku soconaysaa rabitaankiina waxaan inii sheegayaa midnimada Soomaaliyeed waxay naga tahay dhab waxaan mar walba ka shaqaynaynaa Soomaali sidii u midoobi lahayd wada kastoo wanaagsan waan u maraynaa ciddii xumaan ka shaqaysana hadda waa la xisaabtamaynaa haddii Ilaahay ka dhigo marka waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed inay midnimadooda adkaystaan xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay wixii aad ku xadli jirto waa taqaanaa calaacalkaagi waa duuban yahay Puntland waa tii kuu soo gurmatay markaa calaacalaysay waa tii godka kaa soo saartay ha ku kadsoomin xamarna cid kama lihid Soomaaliyana laguguma aamini karo waana kaa qabanaynaa Ilaahay idinkiisa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi